aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud Saalax waxaan ku dhashay gobolka Togdheer oo Burco ay ahayd markaas magaalada gobolka ah degmada waliba Oodweyne baan ku sii dhashay miyigeeda Oodweyne 60 kilomitir bay ka jirtaa galbeedka xigta Burco aabahay wuxuu ahaa sheekh عالم أبوها فاميلي الدينات بنا أجاس بروح هود كذا أردن بوشيخ جاها الشيخ محمود صالح على ما قعيس الأولن شري نانيسنا وحال الأولن الشيخ محمود مشيرتين تايتل كاس أردن أيوه هيسن شري وقوي صدح مشيرتين بشرته صدح نبى ما عقاطي الشيخ علي مشيرتين أضل يلاذو كواس الشيخ بربرة كواسن الشيخ محمود مشيرتين يو حاج الديرية مشيرتين ويسوونه إنجليزي لا شغيني صدق هو رغوي صدق هو رغوي واحد صدق هو رغوي marka abay isku soo ma ku dhashay laakiin halkaas sheekhan buu tagay waana ku dhintay halkaas aan ku dhashay ku soo barbaaray iskuulka hoose iyo ka dhexe kaga baxay iskuulka dhexe waxaan kaga baxay Oodweyne college ku taala secondary waxaan ka baxay Sheekh secondary school Sheekh 1972 kacaanka markaa wadanka haystay dawladda civilkeed waa laga wareegay waxaan galay militariga Russia ayaa course lagu qaaday 6 sanadood oo ah electronic engineering 6 sanadood electronic engineering aan Russia ku soo bartay Leningrad electronics wuxuu ku saabsanaa maraakiibta badda ama ahaadeen kuwa militariga ah ama ahaadeen kuwa civilian ah electronics ay ku shaqeeyaan macal electricity la socoto waan soo noqday militariga markaa galay berberaan ka shaqeeyay kadib xamar militariga markiiba waan ka baxay kuma raagin 7 sano aan ku jiray waxaan ka gaaray cornel waxaan galay intaan xamar joogay waxaan galay haddana maxaan ku yiraahday faculty-ga dhaqaalaha ee jaamacadda Soomaaliyeed oo aan ka baxay 1984 baan ka baxay waxaan u wareegay haddana wasaaradda kalluumaysiga markaan jooga jaamacadda ay ku jiro wasaaradda kalluumaysiga iyo baddu way isku dhadhawaayeen iyadana waxaan hadii badan ka shaqeynayay ilaa dawladda dhacday shaqooyin badan oo kale oo aan soo qabtay oo waajita midalan Boosaaso warshada kalluunka ee Boosaaso markii la dhisay manager aniga ka ahaa shirkadii la dhisay shirkad ajnabi ah dhisay anuu xagga dawladda ka socday markii qabto dhacday waxaan joogay xamar xamar waxa ka dhacay yani waxa aad iyo aad u dhib badan baa ka dhacay dadkii markaa joogay baa garan kara dawladdii Maxamed Siyaad Barre 10 sano u dambeysay way soo dhacaysay nidaamka dawladda iyo nabadgelyaduna farahay ka sii baxaysay shabahada ku sameysmay SDF ugu horeysay waxa ku xigtay SNM USC midba waxbay la degtay goboladoo dhan baa dagaal ka dhacay dawladda markaas ay mataqaana u daciifaysay markii u dambeysay waxay noqotay in xamar loogu soo galo actually kuma xamar jabhadu uguma soo galin laakiin taageerayaasha jabhadaas baa dadkii booliiska xamar joogay baa kacay oo mudaharaad iyo sameeyay حتى دولة كوا شغالين يقوليها هي أما هو كهيانا دي واحد متقنا واحد كلا رأسنا جواداس مركا اليوم بعد دولة دي متقنا مدة دير بيسكه عاش يسكفر دي لما ودا يعني هاي واحد يشيرتوا لكن ما تشيرين شيكون يقول متقنا هذا رات يقول واحد كم ده 1990 اللي حبلوت كهر دولة تايدين بانما وذا شقين شريو مدحوينا عيسك فاميليين بانو سارقنا بروح أنا وذا عين كذا وحن شو مدحتويدا عيدا مدحتويدا إلى ليانا عبد القادر وحن قوان هو قاري إن عن خير كي يجرره نجي له سو مرك أسر كيسوها نجي إلى عن خير كي أذان صون قرن وحوي وحكمت هاي اللبضة بقولة إن مدحتويدا إلى لسه
markaasaan maxaa kalifay wuxuu yiri wax la'aan baa kaliftay markaas waxaan yiri oo madaxtooyada joogtay sidee aad wuxuu weeyay wuxuu yiri madaxtooyada maqashay 200 shilin baa lagu qaataa isbitaalada waana hado 350 baan qaataa 550 kaas 15 cisho ay uma filla markaasaan ogaay horta dawladdu dhacday يعني waxyaalaha indicators madax yani askari maxaan ku dhahay madaxtooyada waardiyeynay markuu ka quusto marka xamar saasay ahayd mutaaraadii dhacay ay dheedkii oo kale waqooyiga markii ay shaqooyin ka dhaceen dad badan baa lagu qabtay waa lagu laayay dad badan baa la xiray adigu say u soo dabacaysay markii dambe shacabkii waa kacay waxaan xusayaa oo ugu weynaa oo aan oran karo laadkii u dambeeyay ama ribaaxadii u dambeeyay ku dhufteen manifesto odayaasha manifesto oo ahaa dawladii hore ragii muuqanaya ahaa maxamed siyaad barka horeeyay isla markaana shacabka yani kalsooni badan ku lahaa ba June 1990 bay manifesto soo saareen waa la xiray mudaharaadii dhacay adigu jugtii u dambeysay manifesto ku dhufatay saasuna markii u dambeysay maxaan ku raaday madaxtooyadii loogu dhacay madaxweyne kala carar baa dhacay markii kala carar dhacay qof walba meeshii uu nafta la aadi lahaa ayuu la aaday nidaam maamul oo habaysan oo intuu ninkii wuxuu baxay 26kii January Maxamed Siyaad Barre baxay 1991 nidaam bedelay oo habaysnaa ma jirin intii xataa eriyay isku ahayd mucaaradku ahayd markaasay kala jabtay مثلا marka lagu kacayo SDF taageerayaasha USC taageerayaasha SLM taageerayaasha waxa soo dhan xamar wada joogay kulli way maxaan ku yiraahday wada shaqeynayeen hadba meelba xaafad baa laga kacayay wada shaqeynayay laakiin maalintuu baxay waji kale yeelatay dagaalka wuxuu noqday dagaal qabiil buu isu bedelay marka dadkii shalay Maxamed Siyaad wada ridayay baa isku soo jeestay USC iyo taageerayaashu waxay bilaabeen inay dadkii laayaan gaar ahaan kuwa goboladan ahaa marka guriga walba loogu dhacay yani kala carar iyo qof walba naftiisu la cararay kismaayo dadkii u qaxay baan kamid ahaa baawar baan qalqaalsanay anagoo maxaan ku dhawra wadada way iska banaanayd xamar baa mashaakil ka taagnayd waxa kale dawladdu way dhacday marka toos baan ku galay kadibna waan ka soo wareegay waxaan imi goboladan July 1991 baa imi halkan waxaan soo maray goday waa soo wareegna dad badan baa soo maray khadka wadadaas maxaan waxa loo baxshay muxuu ahaa magacu waxa la oran jiray habar waalid marka Soomaaliya laga baxay xagga la maray waxa la maray bar dheer la maray waxa maray meesha la luuq saas loo soo maray geeday halkaas waxa laga soo galay galdoog dhinaciyaas laga soo galay halkan markaan imi waxay ahayd runtii goboladan ciidimo joogin markii hore dadku koonfur bay jireen gobolo mahjuura bay ahaayeen haday ahaayeen gobolada mahjuurka dadku dad iska xoolo dhaqata magaalooyinkan waa yaraayeen horumar kama jirin leyd waa ka jiray boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo gaalkacyo laakiin wax kale oo horumarina ma jirin iskuuladii iyo wixii ahaa basic service ka ahaa way go'een oo waaxidman caafimaadkii kulli waaxidman dabada waxa yimi muddo 2 sanadooda waxa ku soo shubmayay dadkii gobolada u dhashay oo ka soo qaxay xamar markii hore ka qaxeen Kismaayo hadana USC baa kaga daba tagtay waa la soo qaxiyay halka yimaadeen markaas dadkaas oo waxba haysanin iyo kuwana waxba haysanin baa isugu yimi anigu hadda boosaaso guri baan ku lahaa ka hor 2 qola 7 reer baa ku soo degtay gurigaas aniga reerkeena qol baan isugu tagnaa hadba reer baa yimaada qolkaas ay ku soo degaan 3 bilood 4 bilood markay joogan bay meel kale si aadaan kuwa kala yimaada marka xataa degaan ma jirin nolol aad iyo aad u adag dadka halkan marka joogay intii tamartooda ahaa dadkaas soo qaxay oo waxba haysanin way u gurmadeen nolol ba cusub aan halka bilaabeen dadka waxa ka bilaabeen nolol bay ka bilaabeen way adkayd aad iyo aad bay u adkayd waxa ka daraa hadana USC baa qabsatay maxaan ku dhahay gaalkacyo 24 February 1991
xamar markii laga qaxay Kismaayo waa kaga daba tagtay isla markiiba maxaan ku yiraahdaa gaalkacyana way soo weerartay nimankii USC da waxa la waday aan sheegay hadda la shaqeynay markay arkeen in nimankii wadadii ka leexdeen oo arintiiba ay isu bedeshay dagaal qabiil maxamed abshir iyo afballaar iyo muxuu ahaa ninkii la oran jiray jaamac ali jaamaciya nimankii la waday ee manifestada ahaa markay arkeen way soo duuleen gaalkacyo yimaadeen waxa la bal jabad la sameeyo de wixii martii maxaan ku dhahay badankii jabad iska noqotay SMna waxay la wareegtay wooyiga February horaanteedii ba SSDF golo dhexe oo SSDF la sameeyay oo 42 xubnood ahaa maxamed abshir baa laga dhigay German waa February bilowgeedii 24 February markay meesha soo kala kaceena Aydid baa soo weeraray USCSN baa soo weerartay way qabsadeen dad badan bay ku laayeen waxay noqotay marka dagaal qabiil bay noqotay wala iska awal halkan aduu 45 cisho bay haysteen gaalkacyo after 45 days waa laga saaray xoog baa looga saaray maamulkaas horta maxamed abshir markii halka la dhisay waqti iska adag bay ahayd la qaxayo maxamed abshir marka jaamaca nin la yiraahdo xiriiriye ka dhigay yani coordinator isagu wuxuu aaday Sacuudiga oo xogaa problem familieskiisa laba reer buu labadii xagga jireeno arintaas ku daa 7 bilood buu ku maqnaa kadib uu yimi wuxuu dhisay mudiriyaadka waxa la meeshii maamul baa loo baahan yahay wuxuu dhisay marka mudiro waa maamul ninkii wasiirka oo kale booskii wasiirka mudir ayaa uu ka dhigay anu kamid baahan mudiradaas waxa mudirka maxaan ku yiraahdaa arrimaha difaaca ya mudir xigeen baan ma garan wasiir ku xigeen marka magacan islaamiga oo iimaan iyo mudiro dadaan xilligaas wallahi maxamed abshir baa gudoomiye isaga ahaan marka wuxuuna ahaa maxamed abshir mutadayin xagga diinta maxaan ku yiraahdaa aad ugu horeeya marka dhinacaas ka soo qaatay marka yani maamulada islaamiga ahaa ayuu ka soo qaatay waxa halka iyadana aan ku darayaa markii gaalkacyo lagu dhisay SSDF la yimi maxaan ku yiraahdaa boosaaso la isugu yimi xarun noqotay dekadiiba maamulkeedii waa ka burburay dawladii waa burburtay yaa loo dhiibaa baa la yiri niman la yiraahdo al-ittixaad oo markaan aad loo aqoonin wadaad ah oo qayb ka mid ah gobolkan ka mid ah waxay hayeen iyagu markii dambe sida soo baxday urur jiray oo xamar ka jiray oo leadership laho laakiin halkan dadkii goboladan ahaa ka mid ahaaba yimi dhalinyaro badan oo maxaan ku leeyahay iyadu ka tirsan oo jirtay waxay wadaadada dekada inoogu dhiibay 29 baa loo dhiibay bagaratay waxaan abshir marka maadaama uu maxaan ku leeyahay wuxuu arkay inaan fiicano inay yihiin mataqaana wadaada isagu lugu weyn balaftiis ku lahaa in loo dhiibo ganacsato badan oo boosaaso ah iyaguna saas lugu bay ku lahaayeen oo nimankii hore maxaan ku leeyahay dawladda u shaqeynayay laaluushka qaadan jiray baa la diiday laga cararayay marka saasa loogu dhiibo waxa iga wartaa marka maamulkan mudiirada yaa kamid ah ragaas maxay shaqadooda ahayd wallahi waqti badan baa ka soo sugayay waxa kamid ah Macawisle Ahmed Hassan oo ahaa marga bari ka noqday oo reer Boosaaso waxa kamid ah Ali Baadiye oo maxaan ku loo dhigay difaaca iyo gaashaandhiga King Kong baa madaxba u ahaa mudiirada ra'iisul wasaare amal odow madaxweyne adoo King Kong baa ra'iisul wasaaraha aadan gudaha qaroodin loo oran jiray maaliyadda loo dhiibay baa jiray rag waa badnaa ilaa 20 bay ku dhawaayeen